Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij yar oo aad u muhiim ah oo aynu ku baran doono cilmiga telefoonka. Waxaana weeyaan waa program yar oo muhiim ah oo ah ma ogsoon tahay inaad ogaan karto xilligii ugu horreeyay ee telefoonkaaga line la geliyay. Mase heli kartaa in telefoonkaaga xilligii ugu horreeyay taariikhdii ugu horreysay ee line la geliyay ma ogaan kartaa mise heli kartaa. Haddiise loo baahdo ma raadin kartaa. Waxaan u maleynayaa inay muhiim tahay in uu ruuxu ogaado xilligii ugu horreeyay ee telefoonkiisa line la geliyay. Sababtoo ah sometimes ama marka qaarkood waxaa dhacdaa in ruux telefoon uu ruux kale uu doonayo inuu lacag kaga ceshado ama uu ka qaato ama maartay si kale uga la wareegayo. Waxaa laga yaabaa inuu ugu sheekeeyo telefoonkan wuxuu shaqeynayay bil, 2 bilood, sanad ama wax kale. Laakiin waxaas oo dhan wax ka muhiimsan baa jira oo sheegaya telefoonkan xilligii intuu shaqeynayay markii uu line la geliyay ugu horreysay hadduu line ku jiray kii ka horreeyay xilligu yahayba. Haddaba bal aan bilowno oo aragno meesha laga arkayo iyo waxa uu yahay. Okay, waa program yar oo la soo download gareynayo. Waxaan laga helayaa Google Play Store. Play Store marka aadayna Play Store marka ku furto Play Store uu kan yahay. Okay, datada horta on ka dhig. Oh, sorry. Datada on ka dhig. Datada marka on ka dhigto waxaad halkan ku qoraysaa already ku qoran tahay waxaad ku soo qoraysaa laakiin hadda saad u aragtaan qorayaa phone info wad qoraysaa. Hadduu Samsung yahay hadaysa phone info Samsung. Telefoonka hadda waa Samsung aniga. So waxaan dhahaynaa phone info Samsung qadanayna. So automatic ka sukaraya so already anigu igu jiray. Waxaan dhahaynaa markaas open baan dhahaynaa. Open markaan dhahno wuxuu inoo keenayaa program. Waa kana. Open markaad dhahdo automatically wuxuu ku keenayaa telefoonka modelkiisa, device typekiisa, product numberkiisa iyo count wadanka uu original ahaan u ka imaado telefoonka ayuu kuu sheegayaa. Xataa telefoonkan haddii lagugu sheekeeyo meel hebel baa samaysay waa arki kartaa meesha lagu sameeyay telefoonkan. Okay, baad arkaysaa telefoonka waa kan China lagu sameeyay telefoonkan. So manufacturing date kaas meesha ku qoran ma aha xilligii la sameeyay telefoonka. Xilliga telefoonka la sameeyay waxaa ku qoran released year baa ku qoran xilliga telefoonka la sameeyay. Laakiin manufacturing date kaas wuxuu ka wadaa xilliga line la geliyay ee telefoonkan network galay weeyaan manufacturing date. So line telefoonkan hadda wuxuu ku leeyahay waxaa line la geliyay 2016 bishii 6 2024 ayaa line la geliyay ku leeyahay. Waa markii maartay uu telefoonkan soo saaray isticmaal la isticmaalo uu soo saaray way wax soo saaritaanka xagga isticmaalka ee ugu horreeyay uu shaqo galay weeyaan waa 2016 bishii 6 2024 weeyaan. Marka halkan waxaad ka sii heli kartaa wali macluumaad kale oo dheeraad ah ka sii heli kartaa oo ah access code-ka waxyaalahaas oo dhan mobile operator telecom line ku jirta iyo halkan ka sii heli kartaa. Marka waxa weeyaan daawadayaal qaas ilaa serial number wada sii heli kartaa Android Vision-ka personal information-ka kan IME serial number iyo waxaas weeyaan. Marka daawadayaal casharkan ka hesheen waxaan inoo noqon doonaan insha Allah taala casharada ku saabsan mobile system-ka ama mobile device-ka qaabka ugu wanaagsan ee telefoonada haddii uu ka lumaan loo track gareeyo haddii maartay waxyaalo kale aad doonayso oo macluumaad oo dheeraadana ee mobile-ka ku saabsanaa inaad ogaato aad doonayso please halkan like intaad saarto share dheh. Like markaad saarto maxaa maxay tahay like markaad saarto waxaa kuu suuragelaysaa video kasta inuusan ku dhaafin oo uu kuu sheego markii video cusub la soo geliyo oo dhan video cusub la soo geliyay ee ka faa'iideyso ayuu kuu sheegayaa markaad like saarto. Marka saasaan idin sheegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Casharkeena maanta halkaas.